sidii caadada ahayd odayga Barabas waxa uu soo wadaa filin faraha laga gubtay. Filinkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Salaar waxaana soo baxayaa bisha 9 sanadan aynu ku jirno. Balse filinkan ayaa lagu saadaalinayaa inuu noqon doono filim blockbuster ah. Sidoo kalena waxaa kale loo saadaalinayaa inuu noqon karo filimka sanadka 2023. Dabcan filinkan ayaa noqon doona action aan dhammaan lahayn sidii caadada u ahaydna Barabas filimadiisu ay u badnaayeen actionka iyo sidoo kale daraamada cajiibka iyo habshiliinkiisii quruxda badnaa. Dabcan filimkan waxa uu noqonayaa mid ka mid ah filimada ugu wanaagsan ay dadku sugayaan daawashadooda. Qisadiisuna waxay noqon doontaa Salaar oo ah shakhsiyadda Barabas uu matay doono oo isku dayaysa inay noqoto maamulaha gaangisyada magaalada oo dhan. balse silsilada 2024 January 12 waxa uu soo deyn doonaa ama la soo fasixi doonaa isla filinkiisa labaad ee lagu magacaabo Project K. Dabcan filinkan waxaa la filayaa inuu heer caalami noqdo sidoo kalena xataa ha gudbo mandaqada India kaliya maahane worldwide-ka uu gudbo sidoo kalena ka tartamo dunida shaashadaha caalamka ugu waaweyn. Filinkan waan qisadiisa hore looga matalin filim laakiinse markii ugu horeysay noqonaysa ay isku dayaan shirkadaha koonfur India kuwaasoo markaas soo bandhigaya filin action ah sidoo kalena science fiction ah ama cilmi khayaalka ku saabsan kaasoo ay wehelin doonaan aktara kale waaweyn oo ka mid yahay aktarkii ugu caansanaa Bollywood oo lagu magacaabo Amitabh Bachchan ama Alder aynu naqaano iyo sidoo kale telefishada ugu waqtiga fiican hadda joogta waa Deepika Padukone. labada aktarba filinka waxay u yeeli doonaan sumcad aad weyn sidoo kale filinkaasi waxaa laga rajaynayaa inuu noqdo heer caalami. Dabcan Barabas waxaynu caado ku ogeyn ah inuu soo matalo filimada ugu khatarsan sanad walba sidii caadada ahayd filinka ugu sareeya Bollywood marka loo eego ama India oo dhanba waxa uu ahaa filinka Bahubali kaasoo noqday filinkii ugu lacagta badnaa abid ee soo mara India. Filinkaasna waxaa hoggaanka ahaa Barabas sidoo kalena Bahubali 1kii sidoo kale wuxuu ahaa mid ka mid ah filmadii ugu lacagta badnaa sidoo kalena ugu fiicnaa bes ahaana ahaa beso unique ah oo cusub aan horey looga matalin filimam sidoo kalena ay yaraayeen xataa in laga sameeyo filin. Barabas waxa uu caan ku ahaa sidoo kale inuu soo daayo filimada ku saabsan actionka sida filimka Saho iyo sidoo kale filimka la magac baxay Rebel oo ahaa filimkiisii ama filimadiisii ugu horeeyay mid ka mid ah kuwa ku soo caan baxay. balse wayna joognaa labadan filin insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid ka mid ah ama sida la sheegaya inuu noqdo filin ay dadku jeclaystaan daawashadiisa. Salaam.